galab wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markaan wararkii warbixinadii ugu xiisaha xamaasada badnaadaan oo kale Israac Media ka daawo jirteen waxaa kamid ah Cabdi Qaydiid oo tacsi u diray Cornel Ruush senator Flore oo eedeyn u soo jeediyay madaxweyne Gaas madaxda qaranka oo tacsi u diray geeridii ku timid Cornel Ruush Allah u naxariistay qodobadaas iyo qodobo kale oo eedeyn qarneen ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeena hadduu ebeedmo subscribe sar gambalelka kana furo si aad u hesho warar wixii ku dhaafay ama waxa minidka dhacaya gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid ayaa tacsi u diray geeridii ku timid Allah u naxariistay xildhibaan Axmed Maayo Cabdulle oo ku magac dheeraa Cornel Ruush senator Cabdi Qaydiid ayaa sheegay in marxuumka uu howlo badan u soo qabtay dalka isla markaana uu kamid ahaa guddiga dastuurka ee golaha shacabka sida oo kale Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in maanta marxuumka aas qaran loogu sameyn doono gudaha dalka caasimadda magaalada Muqdisho Allah u naxariistay xildhibaan Cornel Ruush ayaa haatan kamid ahaa baarlamaankii 10aad iyo sidoo kale baarlamaankii 9aad ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore maamulka Puntland haatan senator ka tirsan golaha aqalka sare Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa eedeyn kulul soo jeediyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaal senator Farole oo warbaahinta kula hadlay Garowe ayaa ka dhawaajiyay in madaxweyne Gaas 5 sano uu xilka hayay uu dib u dhigay horumarka Puntland sida oo kalena maamulka ugu hogaamiyay uu ku kacay musuqmaasuq xoogan sida uu hadalka u dhigay waxa uuna intaasi ku daray in madaxweynaha uu jaray xiriirkii Puntland kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray geeridii ku timid Allah u naxariistay xildhibaan Maxamed Maayo Cabdulle Cornel Ruush iyo xildhibaan Khayre Maxamed Xasan oo ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu sida tan ku yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka waxaan tacsi tiiraan leh u dirayaa guud ahaan shacabkii Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaskii ay ka baxeen xildhibaan Maxamed Maayo Cabdulle Cornel Ruush oo ka tirsanaa golaha shacabka iyo xildhibaan Khayre Maxamed Axmed oo ka tirsanaa baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariisto xildhibaan Maxamed Maayo Cabdulle Cornel Ruush wuxuuna Allah uga baryay inuu jannadii ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadiina uu ka geeriyooday samiri iimaan Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un